بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدى الصومالي مالا جوجتان بوقت وهايدين وعناضو وعين برنامج كان كوبان aynu ku soo qaadanayna dhacdooyinkii u dambeeyay oo ay kamid tahay dhacdada ka dhacday caabud waaq iyo qaniimada waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala rabbaaniga ah maanta ay reer caabud waaq ay maxaa ku raday gacantooda gashay waxaan leenahay hambalyo baan leenahay waxaan kaloo waxa weeye maxaa ku raan ka hadlaynaa dhacdo la sheegay in Kismaayo ka dhacday oo Axmed Madoobe ninka la yiraahdo Axmed Madoobe uu duulaan ku qaaday deegaanka magaranaysa ciidamo dawladeed oo waxa weeye maxaa ku dhaca ciidamadii wiilasha lagu soo tababaray maxaa ku dhacday meesha la yiraahdo Eritrea oo la leeyahay waxay u badnaayeen beel Soomaaliyeed bay u badnaayeen iyagana insha Allah waxbaan ka oran doonaa ma waan xaqiijin doonaa insha Allah bismillaahi kariim haddaan ku horeyno hubkan maxaa ku dhacday qaniimada ah ee maanta la qabtay sidaad ogeydeen walaalayaal ayaamahanba waxaan ka hadlaynay Xasan Sheekh iyo dawladdiisa waxaynu ku dhaleecaynay dagaalada dalka maxaa ku sokeeya ee dalka ka socda inay mas'uul ka tahay waxaynu ku dhaleecaynay dastuurkii dalka inay aftuubtay waxaynu ku dhaleecaynay dadka Soomaaliyeed ee maxaa ku raday inay dhacday oo magaca caasimadii Muqdisho dadkii ku noolaa inay hantidoodii ay dhacday ilaa markii dambe ay qabuurihi ay maxaa ku u dhaadhacday oo dadkii ay maxaa ku guryahoodii meeytidii iyo maxaa ku raday lafihii baaliyoobay laga soo saaray maxaa ku raday dhulkii maxaa ku raday Ilaahay uu makaniyay hoygoodii runta ahaa waxaana maxaa ku raday waxa loo sameeyaa dhaqaale lagaga deeyay hore baynu uga soo hadalnay waxyaabahaas oo dhan laakiin dadku waxa laga yaabay qaarkood inaanay garawsan oo aanay u aragar haddaba Soomaalidu waxay tiraahdaa been maragiisu fogeeyaa ee maanta waxaynu haynaa marxaatigii baynu haynaa waxa weeye marxaantigiina waxa weeye cad waxa weeye oo ay magaranaysaa ku saabsan colaadan waxa weeye Mudug iyo Galguduud ka socota yaa ka dambeeya cidii ay shaki kaga jirtay oo maanta waa taas ogaada oo fahma sida aynu maxaa ku hore u sheegnay dawladda Xasan Sheekh waa dawlad ay shisheeye leeyahay waa dawlad daba dhirifa waa dawlad isticmaal kalkaala waa dawlad waxa weeye ku dhisan sharci darro ku dhisan iyo dulmi waa dawlad doonaysa dadka Soomaaliyeed inay aftuubto sida ay magaranaysa maxaa ku dhada meelaha qaarkood sida Ismaaciil Cumar Geelle iyo siisiga Masar iyo ayaa waxa magaranaysa ay laga soo lagu yiri iyaguna ay ku qanceen inay ummadda Soomaaliyeed aftuubaan oo ay aftuub ku haystaan inta noloshooda ka hadhay sidaa darteed ayaa waxay isticmaalayaan wadooyinkii ay u mari lahaayeen sida ay dadkan ay maxaa ku u aftuubi lahaayeen iyagoo hantidooda dhacaya oo aan cidna u aabayeelayn qoysna aan dhaafayn qaraabana aan lahayn inay waxa weeye marka ay magaranaysaa dariiqyadii ay magaranaysaa u mari lahaayeen ay sameeyaan dariiqadaas oo inay dadka Soomaaliyeed iska hor keenaan oo iyaga hubka isugu dhiibaan oo iyaga isku dilaan oo iyaga isku mashquuliyaan si ay iyaga uga faa'iideystaan arrintaas waxa marxaanti ka ah hubka maanta aad arkaysaan maxaa ku hore aynaan u arag Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkii loo waday in lagu laayo Ilaahay uu makansiiyay waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan thumma waxa weeye wiilashii cid kasta oo ka soo shaqaysay ayaa ku mahadsan in dhagartaas waxa weeye laga hortagay dhagartaasina ma dhamaanay dhagaro badan baa jira oo soconaya sida darteed waxaan leeyahay waxa weeye shacabka Soomaaliyeed waxa weeye horta hubkaas marka hore waxaan leeyahay hubkaas waxa loo baahan yahay inaad xafidaan oo aad waxa weeye maxaa ku gacmo ammaan aad gelisaan oo aad isku ilaalisaan oo aad isku difaacdaan oo insha Allah bismillaahi kariim oo dhagarta ma garanaysa maxaa ku dalka aad wax ugu tartaan idinkuna naftiina aad ku ilaalisaan dalkana aad ku difaacdaan laakiin maaha inaad dhibaato iyo dar aad ku geysataan insha Allah bismillaahi kariim reer caabud waaq baan la hadlayaa walaalaha kale ee maxaa ku hubkan la doonayo in lagu laayana inaad iyagana wax ka siisaan insha Allah bismillaahi kariim iyagana intaasaan leeyahay waxaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan aan ku leeyahay dadka Soomaaliyeed oo kuwa loo nasab sheeganaya Xasan Sheekh dawladdiisu ay u nasab sheeganayaan oo ay lahaayeen anagu super power baanu nahay iyo ay lahaayeen waxa weeye sambalo shahadalkiisii ahaa anagu waxa weeye ninkii maxaa ku xoog laba talinaya qorshaha socda
ma garanaysaa ay waxa weye maxaa ku dhaha hay-adda nabad sugiddu ama nisa ay waxa weye hawshan ay u fulinaysay waa qorshahaas weeye in beelaha soomaalida la isku hubeeyo oo ay maxaa ku dhahda caalamka u sheegto in la kala adeeg yahay oo ay iyagu xoog dalka ay ku haysanayaan NGO-yo sidaa kula shaqaynayaana ay jiraan cid loo danaynayaana ma jirto oo qolyahani cidda ay sheeganayaan wax naxariisa haba yaraatee uma ay hayaan waayo kuwa qabuuraha laga soo gurayey waxa weye maxaa ku dhaha qalfoofkooda iyo lafahooda lasoo duurayey kuwa ugu badani waxay ahayn beelaha ay sheegtaan bay ahaayeen kuwa waxa weye maxaa ku dhahda dabdamis iyo xamar waxa ka qaylinaya meel walba laga saaraya waa beelaha ay u nasab sheegtaan weye kuwa la laynaya ee la doonayay in dad kale oo muslimiina laga horgeeyo oo ay dhammaantood ay dhintaan iyaguna ay wax dilaanna waxa weye maxaa ku dhaha wiilal wanaagsan iyo gabdho wanaagsan baa lagu waayo waxa weye waa iyaga weye marka nimankani waxa weye dadka soomaalida waxay u isticmaalayaan xaabo waxay xaabay u tahay marka waxaan leenahay waxa weye maxaa ku dhahday dadka iyaga ah waa cadow cid walba cadow bay ku yihiin ka ay la dhasheen cadow bay ku yihiin ka ay la magaranaysaa maxaa ku dhaha ku abtirsadaan cadow bay ku yihiin kuwa kale ay ka soo horjeedaan cadow bay ku yihiin dalkana cadow bay ku yihiin diintana cadow bay ku yihiin ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay waa in la istaago oo dalka la badbaadiyo oo duulka aan ku kacno oo gobol walba lagu kaco oo degmo walba laga kaco oo waxa weye maxaa ku dhahday ilaa iyo gedo ilaa iyo maxaa ku dhahday galguduud ilaa iyo waxa weye maxaa ku dhahday magaranaysa maxaa ku dhahday mudug ilaa iyo meel walba ilaa iyo hiiraan dadka soomaaliyeed waa inay isbadbaadiyaan qorshaha loo qorsheeyey waxa weeye 30 sano iyo 4 sano ayay dadkani waxay isku haystaayeen qabiil isu haysteen 34 sano oo cusub ayaa la doonayaa inay dadkani saa isu sii haystaan oo isku sii baaba'aan ujeedaduna waxa weeye jinsigan Soomaaliyeed dhammaantii inuu meesha ka baxo wey oo la waayo kabacdina dalka la wareego dad shay ay la wareegaan ujeedada Xasan Sheikh ay ka shaqaynayo oo Sambaloosha ka shaqaynayo oo Fiqi uu ka shaqaynayo oo Maasalaad uu ka shaqaynayo oo Axmed Madoobe uu ka shaqaynayo oo Ismaaciil Cumar Gelle uu ka shaqaynayo oo Axmed Madoobe uu ka shaqaynayo oo maxaa ku dhaha qaar kale oo badan ay ka shaqaynayaan taa weeye walaalayaal oo ra'iisul wasaare Xamse uu ka shaqaynayo taa weeye marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed fadhiga ka kaca allahna ha idin garansiiyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh